banaanbaxan ayaa shacabka magaalada Garowe waxay uga soo horjeedeen colaadda magaalada Gaalkacyo ka taagan iyo taageero ay shacabku muujinayaan ciidamada Puntland iyadoona ay kala soo qayb galeen maamulka gobolka Nugaal iyo kan degmada. dadka dibadbaxan dhiga ayaa eedan u soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo sheegay inay ka dambayso dagaalada ka soconaya magaalada Gaalkacyo. shacabka oo markii ugu dambeysay isugu yimid fagaaraha caanka ee barxadda ayaa ahaa kuwo iskood isku soo abaabulay waxayna ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo inaysan dooneen madaxweynaha uu haatan xilkiisa dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud. gudoomiyaha degmada Garowe Xasan Maxamed Ciise Goodir ayaa ugu horeyntii ka hadlay goobta shacabka isugu soo baxeen waxa uuna sheegay in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya markaas la amray in maaragtay Puntland ciidankaas lagula dagaalamo iyadoo laba maamul goboleedood oo isku dhacay inay kala celiyaan ay ahayd inay maslaxad dhex dhigaan ay ahayd ay mid ka mid ah la safteen. waa iska cadahay taas fariinta ay dirayso waxay wiiqaysaa midnimada ummadda Soomaaliyeed waxayna dhulka la tagi doontaa is-aaminaadda dadka Soomaaliyeed oo dib isu aaminay. colaadda magaalada Gaalkacyo waxa uu tilmaamay in Galmudug iyo Puntland aysan kala maarmin gaar ahaan labada shacab. Puntland iyo Galmudug ma kala maarmaan. haddii 40 sano dagaal socdo kala maarmi mayaan meeshii bay joogayaan labaduba. hal kalena ma jiro in nabad wax lagu dhameeyo oo nabad la qaato waxaan hayno shaqaynaya ma jiro. gudoomiyaha degmada Garowe ayaa ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Galmudug oo ahaa Gaalkacyo inay yeelato hal maamul. waxa soo yeedhay laba maamul kama shaqayn karaan dhinaca Galmudug ka soo yeedhay Gaalkacyo kama jiri karaan. Gaalkacyo waa la yaqaan waa 4 rukun 4 xaafadood weeye xaafad Galmudug baa degan 3na Puntland baa degan haddaan la wada joogi karin hadda cidda fudud waa la garanaya. gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa isna eedan u soo jeediyay dowladda Soomaaliya inay horumarayso colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo. waa ogeero dagaalkooda hadda waa socday 10 sano u dambeysay dagaalkooda waa socday laakiin waxaa la yaabaa dowladda Soomaaliyeed oo Soomaaliya laga saaray ku meel gaarka Garowe 1 iyo Garowe 2 inay maanta dagaalkii qayb ka tahay oo ay shabaab la heshiisay taasoo mucjisa. gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Djibouti ku eedeeyay inay hub u soo dhiibeen maamulka Galmudug hubkaas oo ay qabteen maamulka Ahlus Sunna. waxa kale oo wax la yaabaa ciidamada AMISOM weliba Djibouti awal baa wax lagu xalan jiray laakiin hadda ku fogaalmayo Soomaaliyeed ee Gaalkacyo ku laaya in ay Rasuulna wajaha walaalaha iyo Rasuulna wajaha ay qabtaan iyadoo ay ku qoran tahay calaamadda AMISOM iyadoo musiibo kale noqotay. dhanka kalena waxaa Garowe lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen nabadoono waxgarad odayaal dhaqameedka Puntland waxaana looga hadlay colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale ururka Daacish oo shalay lagu arkay degmada Qandala ee gobolka Bari. waxaana kulankaasi ka hadlay Maxamed Daahir oo ka mid ah nabadoonada Puntland wuxuuna ku baaqay nabadeynta magaalada Gaalkacyo isagoona sheegay haddii nabadda la diido in Puntland ay difaacanayso dhulkeeda. sidoo kale nabadoon Khaliif Askar Maxamuud iyo nabadoon Bashiir Cabdi Cali ayaa si wada jir colaadaasi uga hadlay waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda ka taagan gobolka Mudug. sidoo kalena waxay soo jeediyeen in labada maamul ay iska kaashadaan dadka gobolka Mudug degan oo magaalada Gaalkacyo degan waxaanu leenahay dagaalka Gaalkacyo laga daay oo shidada laga daay oo cidii wada Gaalkacyo dagaal uma baahneen nabad bay u baahan tahay nabadda ha loo daayo haddii nabadda la qaadan waayo Soomaaliya waa isgaranaysa. hadda ka horna waa til sheegayo al-shabaab iyo beelaayo isku hoosila meesha timi caliyaalo iyo ceel dheer baa laga soo qaadaya waa dagaal dhameystiran inagu waxaan ku baaqanay nabad marabna dhig Soomaaliyeed inuu daato. kulankan ay isugu yimaadeen oday dhaqameedka Puntland iyo dibadbaxan ay sameeyeen shacabka ku nool magaalada Garowe ayaa ku soo beegmaya iyadoo colaad u dhaxayso Puntland iyo maamulka Galmudug.
sidoo kalena qaar ka mid ah degmooyinka Puntland lagu arkayay koox ka tirsan ururka Daesh. Maxamed Cabdi Casiis Cusmaan, Jubbaland TV, magaalada Garowe.